abkeygan World Cup-kii 2002 ay Japanese-ka u diiday inuu ka qayb galo wuxuu ugu jawaabay aniga darooga dartiis ayay igu diiday inaan ka qayb galo balse wadankii duqeeyay oo ahaa Mareykankana way ogolaadeen inkastoo Maradona taariikhdiisu ay ku hareeraysan tahay daroogada iyo waxyaalihii uu sameeyay oo la yaab ka lahaa hase yeeshee Maradona ayaa wuxuu ahaa ciyaartooygii ugu saameynta badnaa abadan ee World Cup wacdara ka muujiya isagoo lagu xasuusto taariikhdiisa cajiibka lahayd World Cup-kii 1986 ayuu haddana wuxuu Maradona ahaa ciyaartooy xirfadiisa aysan jirin cid la mid ah asagoo kubadda u goon jiray sida Messi u farsamo badnaa sida Ronaldinho una baasi jiray sida Zinedine Zidane hase yeeshee Maradona wuxuu kale ahaa nin u diray xuquuqda bini'aadanka asagoona haddii goorba taageeri jiray Falastiiniyiinta dhacdaana wax walba uga yimaada Mareykanka arsi dartiisna gool uga dhaliyay Ingiriiska oo ku dhaliyay gacanta loo yaqaano Mano do Dias waxaan kaloo taariikhdan aan ku soo koobi doonaa ciyaarihii World Cup-kaas oo ciyaaray oo dhan Maradona waxaan kaloo ku sheegi doonaa sababta keentay Argentina inay jeclaadaan Maradona like ta saar iyo subscribe qarnigii 20aad wadanka Argentina ayaa ka mid ahaa wadamada caalamka ugu dhaqaalaha badnaa maadaama ay ahaayeen xoolo dhaqato dalaga beerata ayagoona ka biic mushtari jiray in wadamooyinka kale ee caalamka ay u dhoofiyaan xoolaha iyo qudaarta uga soo go'aysay beerahooda arrinkaasoo sababay in wadanka Argentina uu si fudud ku noqdo wadamada caalamka ugu dhaqaalaha badan ayagoona xoolo dhaqatadoodu u arkayay inay yihiin halyeeyga wadanka se yeeshee caalamku markuu u tallaabsaday wax soo saarka iyo warshadaha dhaqaalihi Argentina ayaa halkaas ku burburay taasoo sababtay sumcaddii ay caalamka ku lahaayeen ay ayadana hoos u dhacdo balse 1928 qoraaga weyn ee loo yaqaano Brocato ayaa wargeyskii ugu weyn Argentina ee El Gráfico wuxuu ku qoray saadaalintii badashay taariikhda Argentina asagoona sheegay in sumcadda iyo karaamada Argentina ay gacantiisa ku jirto Bibe ama cunug yar oo ku soo barbaari doona wadooyinka Argentina asagoona ah cunugaas cunug wasaqdu ay ka muuqato wajigiisa timihiisuna ay shalladu aysan gari karin cunugaas ayaa wuxuu noqon doonaa cunug xirfadda kubadda cagta ay lugtiisa ku jirto aadna ugu dheereeya sida loo qiyaamo difaacyada iyo xitaa marka qarkiis albiitarahaba cunugaas oo sumcadda Argentina kor u qaadi doona noqonna doona mid ay shacabka Argentina u wada kacaan markii ugu horeysay uu Maradona u saftay xulka Argentina kaliya oo maysan arag laacib u soo baxaya waxay u arkayeen halyeeygoodii uu Brocato 49 sano ka hor sagaaliye Bibe de Oro halyeeygoodii dahabiga ahaa Maradona kaliya uusan ciyaari jiray sida Messi oo kale wuxuu kubadda uga xaragoon jiray sida Ronaldinho asagoona awood u lahaa inuu ciyaar walba bedeli karo haday noqoto sida cajaa'ibka leh uu ciyaartooyda ugu gooyo sida goolasha uu dhaliyo iyo sida cujisada leh ee aragtidiisu u dheer tahay ciyaartooydan ugu sallaxo kubadda World Cup-kii 1986 waxaa loo yaqaanaa World Cup-kii Maradona sababtoo ah Maradona wacdaradii uu ka muujiyay ma aysan dhicin ciyaartooy kale inuu ciyaaraha World Cup-ka uu ka muujiyo sababtoo ah Argentina cid walba waxay u saadaalinaysay inaysan koobkaas qaadi karin loo malaynayo xulalka sida Talyaaniga iyo West Germany inay u cadcad yihiin isla markii Maradona uu ka hor yimid xulka Talyaaniga group stage-koodii
ay wacdaradii uu ciyaartaas ka muujiyey goolkiisii sababay in ay ciyaarta barbara ay kula dhacaan iyaga oo ahaa xulkii qaabkii ka horeeyey qaaday ayaa waxay sababtay dadku inay aaminaan in wacdarada Maradona ay sababi karto in Argentina ay qaadaan taasoo u soo saartay wareegga 16 Argentina. Maradona oo udiisi aysan ahayn kaliya inuu gool dhaliyo ayaa wuxuu sameeyay in ciyaartooydu kubada u dhigo ayagoo inta badan kubadaha ku ciyaaray. Maradona ragdiisi ayaa waxay ahayd World Cup-kaas quarter finalka ciyaartii ayaga Ingiriiska. Maradona waa tii uu wacdarada ugu yaabka badneed uu sameeyay asagoo goolkii gacan ku dhaliyay ama si loo yaqaan hand of God subhanallah goolkiisa kalena uu noqday goolkii ugu fiicnaa qarniga 20aad asagoo dhowr ciyaartooy ka tagay iyo Bortieri goolkaas dhaliyay. arrinkaasoo sababay Argentina in Maradona kaliya aan loo arag ciyaartooy loo arka nin geesiya una soo arguday maadaama 1982 jasiiradihii ay Argentinesku ay lahaayeen ay Ingiriisku damceen inay si awood leh ku qaataan. taas ayana waxay keentay in shacabka Argentina ay Maradona kaliya ismu arkin ay u arkaan inuu yahay halyeeygoodii dhabta ahaa. ayadoo Argentina ay samay finalka ciyaaraha ama wareegga 4-4 ay ugu soo baxeen ay waxay ka hor yimaadeen xulka Belgium oo ahaa xul laga baqi jiray balse wacdarada Maradona inaan aysan celin karin asagoo ciyaartaas labadii gool oo Belgium looga badiyay waqtiisa ku dhaliyay. Argentina ay finalka ugu soo baxdo ayna ku aado xulka West Germany oo laga baqay ahayd. Maradona ayaa West Germany aad ay uga baqayaan ay waxay sameeyeen in maamulka lagu sameeyo ciyaartooy badan ay xirtaan oo u diidaan in Brunto uu la qaajiyo balse ciyaartu markay ahayd 2-2 10 daqiiqo ay ka dhimeed goolkii koobka ay Argentina ku qaadeen asaga ayaa lugtiisa ku baasay taasoo sababtay in Maradona asagoo 25 jir ah World Cup-ka uu qaado asagoo ah kabtanka qaranka asagoo World Cup-kaas loo yaqaano Bion Impossible asagoo Maradona ka dhabeeyay riyada ay ku riyoon jireen Argentinesku in ciyaartooy uu jiri doono sumcaddooda soo celin doono. World Cup-kii 1986 Argentina wuxuu u ahaa guushii ugu weyneed ee wadankooda u soo hoyata inkastoo Argentinesku ay hore u qaadeen 1978 World Cup hase yeeshee World Cup-kaas ma uusan ahayn mid ay buunbuuniyaan maadaama waqtigaas wadankooda gacanta ugu jiray dowlad diktaatoori ah soo sababtay in World Cup-kaasna aysan buunbuunin. hase yeeshee Maradona waxay gaarsiiyeen maqaamkii ugu weynaa shakhsi muwaadin Argentines ah oo abadan gaaro ayagoo xitaa qaar ka mid ah ay yiraahdeen Maradona waa Dios ama ilaahay ay caabudaan subhanallah. kastoo qisada Maradona ay tahay qiso cajiib leh asagoo xitaa kubadda looga ganaxay darooga oo isticmaali jiray darteed hase yeeshee Maradona ayaa haddii goor wuxuu ahaa nin geesi ah asagoo afkiisa ka qiran jiray inuu taageero Falastiiniyiinta asagoo xitaa yiri niyad ahaan anigu waxaan ahay Falastiiniyaan. xitaa markii Mareykanka uu ku duulay Iraq 2003 Maradona ayaa wuxuu soo xirtay fad oo ku sawiran yahay Bush asagoo cambaaraynaya in George W. Bush madaxweynaha Mareykanka uu yahay nin argagixiso ah xitaa asagoo fanaanadaas arafka sacda ah ka dhigay calaamadii swastikada ay isticmaali jireen nimankii naasiyiinta ahaa ee Hitler asagoona u mataalaya in Bush uu yahay nin dadka baabi'iyay. inkastoo Argentina markii uu Maradona ka fariistay xulku uu galay waqti jahwareera hase yeeshee waxaysan ogeyn in biibeegoodii labaad uu soo baxay. waday aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin fiidiyowga qaybtii labaadna waa soo wadaa biibeegoodii labaad Argentineska iyo taariikhda Lionel Messi iyo sidii Lionel Messi waa caqabadooyin badan ugala kulmay Argentinesku maadaama ay ku barbardhigayeen guushii uu Maradona ka gaaray World Cup-ka. ka daawada like, saar iyo subscribe.